waryaaya warkii hore war soo dhaaf maanta baarlamaankii labay u kala baxeen war nabadii nool iyo mucaarad may u kala baxeen gaar yeesle iyoonay gaar noolle waan shalbaheen war gebgebla iyo guulwada may u kala baxeen shima ciidankii guulwadayaasha iigu dambaysa war markii horeba aqalka sare iyo aqalka hoose ahaayeen war waxaan ii sheegay waa golaha shacabka kaliyeena dhegaysta golihiyaa wuxuu u kala baxay golaha shacabka iyo golaha shacabka waxayna isku qabsadeen maanta dastuurkaan ka doodaynaa iyo amnigaan ka doodaynaa kadibna intii golaha wasiirada ku jirtay ayaa mid u siibtay war gacanka hoose miyaa laga hadla nimanka yaa wasiirada baxay ama khayra soo wacay hee war khayra wasiir ma waxe waa ra'iisul wasaare warka naga maqla hadda waxaa la arkay tiradii baarlamaanka oo fadhigu ku qabsoomi lahaa oo aan dhammayn kadibna guddoomiyuhu wuxuu yidhi koorabku ma dhammeeya shirku waa xidhan yahay war maantayoo dalka amnigiisu meeshuu maraya aan ognahay nimanka yidhi dastuurka aan ka doodno waxay duugdugayaan tiro badana war waa in loo hoggaansamaa ajandaha ay soo diyaariyeen guddoonka golaha shacabka iyo guddiga joogtada ah may su'aalo oo golaha shacabku ahaa oo dastuurka halka doodoy leh horta maday isaaqow haantaan sida beri gashow intaan dooga soo qaadaa walaagiyo haddii erayaanka karhaanakii hamar oo fooldiingun erayaanahan asa karhaana ma aha war maanta daahir amiin jeesow golaha shacabka ka mid ma ahayn golaha shacabka ayuu ka mid ahaa war daahir amiin jeesow afayeenka xukuumadda ma ahayn ma marantaa adugu baarlamaanku beriga inay kala baxeen waa caddaatay oo boorarna ay soo qaateen oy golaha shacabka iyo golaha shacabka u kala baxeen anigu intaas waxaan ku dari lahay mugahow beriga baarlamaankiya burya biyuu kala baxeen beriga baarlamaankiya burya biyuu kala baxeen haye beriga ciidan booliis ayaa waxay weerareen xarunta TV-ga Universal waxayna dhaheen canshuur ayaa idinku waajibtoo leedinka rabaa soo dhawaado canshuurta noo sheega markii leeyna xabadeed yaaciyeen hadda ilaahay waa ka badbaashay wariyaasha laakiin waxba la iskuma reeban oo kabteeda ah oo kabriidkayga ah waa ka dhacday war booliiska canshuurta raadinay taraafika qoryo wadato kaloomiya war maya waa bac kasi waraagaasinaha warfaafinta madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed wuxuu yidhi askartii Universal TV weerartay waa la soo qabtay dhammaantood sharcigana la horgeynaya war ma haysiina xalay ciidankii hore ciidanaa lagu sii kordhiyey magaalada muqdisho dhagxaantii iyo jawaanadii iyo dhufaysyadii hore u jirana kuwa kalaa lagu sii badiyey kala wareegna haddaad laamiga ku taqaaneen xaafadihii iyo luuqyadii iyo jacdayaashii yar yaraayay gaartay hadda kala wareeg war kale ma yaala kala wareeg war kala wareeg qofkii ka dhagaadayga nambarka EVC-ga loo sheegaya war kala wareeg oo abniga lagu sugow ma diidano una laakiin kala wareeg oo nambarka 5 waay nambarka 8 waay haddaba yaala gardoro waay taati kale wadahe yaa beriga sabti waayo beledkana qaraxyaa ku jira la yiri in abniga la sugo xaad ku diidaysiin xabadna kala wareeg haydayna war maysiina saraakiisha saldhigga xamar weyne loo magacaabay macaal taliyaashu dariiq walbay taagan yihiin marka ciyaal Facebook waa sheekadu waa ka tagtaa war waagi hore haddaad maqli jirteen ammaanduulaha militariga hadda waa la bedelay generaal Odawaay Raage oo ammaanduulaha ciidanka militariga ahayna taliyaha ciidanka lugta laga dhigay ma naqayahe nin la yiraahdo generaal Cabdirashiid Cabdullaahi oo cusuba bacdi hadda laga fiiqayna waxa laga dhigay ammaanduulaha ciidanka lugta war haddii taliyaasha ciidanka lugta laga wada dhigay buruuf dama xaaran ay ka tahay hal weeyaan war taliyaasha ma taqaaniin inaga dhageysta waxa kale la magacaabay Sarayagaas Cabdi Xasan Maxamed oo ahaa oo qaybsanihii militariga ee safaaradda Soomaaliya dalka Sacuudiga waxaana loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka oo safaaradda Sacuudiga militariga Soomaaliya ma xarun ku leeyahay war ana helasaas ma wiilisho bilang madowga dhuuriya kaabsalan qorjireen kaabsala qorowkii leeyo maday isaaqow hadana ma dhuura casaad noo keenta war dawladdu haday difaacaysay dilkii Jamaal Khashooqi ilaa militari baa Sacuudiga noo joogay ariya militariga Sacuudi jooga ma la soo tarxiilayaad itira hadana war agoontii militariga iyo tii booliiska maanta waa bannaan baxeen hadda cabashadii mushaar la'aanta ayaa iyagana gaartay war ilmihi aabayaasho difaaca ku jireen aanba mushaar heline kuwii aabayaasho dhinteen yaa tabar u haya war haan agoonteen naftiyo aawadheediyo tukaamo magadanaade difaaca ka dhax dhimideen arrihaanu madaxa ku gashay dhagashibda war kale cusub ama aan yaali Sheekh Barfasoor Yaxya Caamir wuxuu yiri waxaan maqli jirnay culummo Soomaaliyeed oo magacoora magaalooyin la raaciyo Soomaaliyeed sida Sheekh Aweysul Baraawi Sheekh Saylici Sheekh Harari Sheekh Muqdishaawi Sheekh Baardheere iyo kuwa kale
kaloo lamida haddaanse waxaa soo baxay sheekh kinyaawi sheekh adis ababi sheekh landanaawi sheekh ooslaawi sheekh homaawi sheekh munusitaawi mugga waa yaabe culummadiina sheekh qurbajoogaawi miyay wada naqdeen war sheekh salaadii jimcada shala masaajidka ka khudbeeye wuxuu yidhi la dagaalanka musuqmaasuqa dawladda madaxda sare ha laga soo bilaabo agaasimayaasha yaa lagu meeraysan waryadee war musabbix ma ogolaanu ku niri musuqmaasuq dee laba wasiir baa lagu tuhmay musuqmaasuq labadii xilkuu ka xayuus war muuse musuq waa daraabay miya mase waa in maqashii hadda xilkuu ka qaada baanu ku niri war maanta waxaa shir jaraa'id qabtay wasiirkii hore ee duulista hawada siciid qoorsheel wuxuuna yidhi waraaqaha beledka lagu faafinayo dadka magacyadiisa lagu qoray iyo warbaahinnaha madaxa bannaan qaarkood oo la leeyahay dawladday lacag ka qaateen waa been abuur dacaayada wuxuu yidhi culumaa la sheegay abwaanaa la sheegay siyaasiyiinaa la sheegay aan anugu ka mid ahay shilinna dawlad kama qaadan waa been aan sal iyo raad lahayn warkaas horta niman yahow beesa waa qaadasho laakiin beenu sheegid ma aha warwar ma haytana guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha hoose mudane najah hadda ka hor intii hilkilika gaadiya wasiirka madaxtooyada koonfur galbeed lakuweeli mar kale gobolkii ku dhammaadi waaya ka aalay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose lahaka nagi hatana firig may fadareed shabeellaha hoose ina walla gobol iska faday widay war waafow guddoomiyaha ma soo magacaabay guddoomiye najah may ba eray waafow lan uswalko hadlaayi ma jirto lebedaan asl nuugile gobolka hal lebedaayo eri warwariye Ilyas Cabdi Cali hargeysuu ka soo hadlay wuxuu yidhi qaraxii muqdisho ka dhacay khamiistii dhalinyaro badan oo reer Soomaaliland ayaa ku dhintay warka Ilyas waxaan ku soo xasuustay hadda ka hor war Cabdiraxmaan Faro la yiri wuxuu yidhi qaraxii ka dhacay Maka al-Mukarrama ambaashadoor bari baa lagu dilay qaraxii ka dhacay Centralna Cabdishakuur Mida Aadan baa lagu dilay marka dadka reer Puntland baa la ugaarsanayaa buu yiri 200 qof aan ku dhimatay labada qarax warnimada waxa la yiri waxaan rabo qofkaan ila rabayn dawladdan rabine mana rabo qofkaan rabin inuu yeelo saan rabo intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin asxaabtii kala maanay wuxuu jeedaa qaloocan ama eexiyo beeno alla looga fogaado anigoon u bareerin abaarteeda wanaagsan haddii aanan siibin waa feefanayaa iga raallihaada raaliga januwa arajinna adigu ride jirnaha ku dardaray adiga waryaa jini ma u dhiman markaa leedahay jiniyaan lagu ridin war waxaa la yidhi TM dhani hadduu tiimbado taageer badan laayo tarabna xaaladdu tagto maydku tira beelo kacsi madaxda talisaahi waa diri taqaana war TM-kiisa ba ku qarxaya dadka hadlaysid taabida duqa magaalada ahay markaas TM nooga tilmaamay kadib kunki baabuuro qaraxday aaway arrimaha socda haddaan maamulka iyo madaxda dalku wax ka qaban wax ka bedelin macna kale yeela doona waqti aan fogeyn aryayaadu ribayhe yarowga hore wiinagan iska reebayu annagu waa aragnaa waxa socda ma ribayna waa